ugu dambeyn oo soo dhamaaday kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyay kooxaha Liverpool iyo Chelsea ciyaar ka dhacday garoonka Anfield. waxaan daawanay kulan qurux badan, ciyaar xamaasadeeda wadatay, taageerayaasha Anfield oo booqoodii badnaa, Chelsea oo soo bandhigtay ciyaar qurux badan, Liverpool oo ka faa'iideysatay fursadda garoonkeeda iyo goolasha ay heshay. Liverpool ayaa garoonkeeda Anfield ku soo dhaweysay Chelsea kulan ka tirsanaa Premier League. Arne Slot tijaabo adag ayuu maray mar kale hogaamiyahan oo ka baxsaday. Ridiska ayaa qaab qurux badan ku jirta ka hor kulankan iyadoo badiyay 9 kamid ah 10kii kulan ee ciyaarta xilli ciyaareedkan. 25 daqiiqo markii ay socotay kulanka Liverpool goolka keentay mar wareeg hore saxay Mohamed Salah oo goolkiisii shanaad ee dhaliyay horyaalka Premier League iyo goolkiisii sideedaad uu ka dhaliyay kooxdiisii hore Chelsea ayaa ahayd kooxdii fiicneed qaybtii hore. Liverpool ayaa nasiib u heshay in qaybta labaad ku baxday iyagoo gool ku hogaaminaysa ciyaarta. maamulaha Chelsea Enzo Maresca ayaa sameeyay isbedel qaybta labaad isagoo xitaa aan ku dahayn sheekada sida macallimiinta qaar oo ilaa daqiiqadaha dambe suga. laakiin Maresca wuxuu leeyahay isbedel daqiiqada hore inuu sameeyo mar walba. Neto ayuuna keenay Kao Sancho bedel ku saaray. Sanjana inta badan waxaa dhibay Alexander Arnold oo waayay meel uu ka maro. Jackson 49 daqiiqo ayuu dhaliyay goolka Chelsea, laakiin calaamadaha ayaa diiday ka hor inta VAR aysan ansixin sheekada. Blue waxay soo gashay rajo fiican taa oo ahayd fursad goolal kale ku dhalin karto, laakiin Ridiska kuma dahayn sheekada. gool labaad ay si degdeg ah u dhaliyeen Curtis Jones ayaana ciyaarta ka dhigay 2 gool. Arne Slot waxyaabaha caawa laga bartay ayaa qayb ka ahayd in casharadiisii imtixaanadii hore wax ka bartay taa oo ahayd ciyaartooyda safarka dhaadheer soo galay ka yimid Latin America sida Alex McAllister, Luis Diaz in nasiino uu siiyay qaybta koowaad, qaybta labaadna uu bedel ku keenay. waana mid macalinkan xilli hore sida loogu sheegay maadaama kulan sida oo kala ahaa kooxda laga adkaaday ama aan ay guul helin taa oo ahayd in ciyaartooyda safar dheer soo galay uu ku soo bilaabo kulankii xigay. Salah ayaana ahaa mid bandhig wanaagsan sameeyay kooxdiisii hore dhan walba ka weeraray. Liverpool ayaa hogaanka Premier League sida ku qabatay 12 dhibcood, waana bilaabashadii ugu fiicneed hogaamiyaha kooxda ninka lagu magacaabo Arne Slot oo aad loo amaanayo. 10kii kulan ugu dambeysay Chelsea waxa guulaymaysan ka gaarin kooxda Liverpool 2 gool marna gool iyo eber 4-1 waa looga adkaaday. barbaray galeen 3-5 kulan isu xigta barbaray galeen waliba 6 kulan barbara ayaa u badan qaarna waxa badanaysa kooxda Liverpool. Chelsea marka 10 kulan sida ay natiijo xumo ku keenaysay. Arne Slot dhammaan kulamadii awaygu ee sanadkan guul weyn ayuu soo gaaray. Chelsea caawana uu ka adkaaday isagoo jooga garoonkiisa Anfield. Salah ayaa booska laad kala hogaaminaya isaga Jermaine Defoe oo ah ciyaartooyga goolasha ugu badan ka dhaliyay all time horyaalka Ingiriiska isagoo leh 162 gool, waxaana ka sareeyay ilaa 8 ciyaartooy oo iyaguna uu hogaamiye u yahay ninka lagu magacaabo Alan Shearer. Chelsea uma suuragelin qaybta koowaad hal on target inay sameyso ciyaarta 2 shoot 3 shoot ee tuurayna on target ama sameyn qaybtii koowaad. James ayaa 72 maalmood kadib garoomada dib ugu soo laabtay ka oo hogaaminaya kooxda Chelsea kastoo guuldaro ay qaateen kooxdiisa lagu magacaabo Blueska. Liverpool ayaa sida hogaanku hogaaminaysa 12 dhibcood, 8 kulan kooxda ay ciyaartay 7 adkaatay, barbara maysan galin hal kulan ayaa laga adkaaday. kooxda 15 gool ay dhaliyeen, 3 ayaa laga dhaliyay, 12 gool ayaana banaanka u taala. kooxdan City ayaana kaalinta labaad loo riday xilli waqti hore adkaadeen, hogaankana si ku meel gaar ah ugu hayeen horyaalka Ingiriiska. kulankan hadda daawatay maxaa kaaga baxay?